gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo Yuusuf Maxamed Ismaaciil Shirtag iyo gudoomiyaha hore deegaanka Godaalo ee gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Cabdi oo kula hadlay TV-ga SBS deegaanka Buurawadal ayaa ka hadlay xiisadaha wali sii xoogeysanaya ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool iyagoona ugu baaqay shacabka ka soo jeeda gobolka Sool in ay is abaabulaan isla markaasna isku diyaariyaan dagaal ka dhan ah waa sida hadalka u dhigeen ciidamada maamulka Somaliland. waxaan doonayaa inaan ka hadlo saddex qodob oo yaryar oo aad moodo bulshada inay aad ugu wareegayaan miidiyahana ay aad ugu badan tahay. saddexdaa qodob mid waa doqoni ma garatay, midna waa ili ma aragtay, midna waa la isla arag. mid waa doqoni ma garatay oo dadka u dhashay Sool Sanaag iyo Cayn hadday garan waayaan maanta halganka iyo hawlgalka lagu jiro kuwa ka hadlaya meelaha ee dadka tushuushka ku furaya kuwaasi waxa weeye kuwii Nabi Muuse habaare weeye. doqon hana gargaarsan hana u gargaari diinta iyo xadiiska labadaba waa lagu sheegay. taas waa ta kale waxa weeye waxaan maqlayaa had iyo jeer oo dadka dhagahooda ku badatay daliya dibadoo saxaafadda ku badatay Puntland waxa ay doonaysaa doorashay doonayaan inay ku kordhistaan bay doonayaan war waa ili ma aragtay. waxaanu leenahay ili ma aragtay waxa la yiraahdaa waxa weynaysada mooye ishu aanay arag. war qof kasta oo tushuush ku wada halganka iyo hawlgalka loogu jiro Sool iyo Sanaag iyo Cayn waanu ka soo horjeednaa waanuna ka soo horjeedi doonaa. siyaasadaha la isku hayo maanta waxa laga hadli karaa oo kaliya waxa weeye siyaasad cid ka hadli kartaa ma jirto. waxa laga hadli karaa oo kaliya waxa weeye waa halganka hawlgalka iyo taageerada. waxaan u hambalyeynaya oo boqolkiiba boqol u bogaadinaya kacdoonnada ka kacay gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee shacabkii dalka lahaa uu kacay isagoo taageeraya halganka iyo hawlgalkaba aad iyo aad baan u soo dhaweynaya. waxaana leeyahay hadhimina hadalka faraha badan joojiya ha cabanina ha qaylinina ficil u bedelaan idin leeyahay. gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waa la isku arkaya ninkii fitada isku xijin lahaa iyo ninkii kalooba waana la iskugu imaanaya haddii Ilaahay idmo. waxaan u digayaa oo baaqaya oo aan leeyahay nimanka jeegaantu waa kuwa baxaya. war anigu maba maqlay Ciise ku jiray gudabiirsadow haddaad ku jirtaan nimankan caqligooda aan arkay walle halkaa haddaad ka noqotaan inayda baabuur burcan la dhaafay waroo isi soo dhiiba buuhoodlaannu idinka wareejinaynaa waxaannu idin wareejinaynaa Boorame. waxaan daawaday xalay video clip waxaa ka hadlaya inama yaryar oo aan dee wax bini aadam wax u dirsadaba ahayn. kollay anigu nin baan ahay oo waxba uma dirsadeen. waxay ku muujinaysaa taasi in tamartii iyo awooddii Muuse Biixi ay gaabatay oo sii gaabanayso. waxa aad u soo dirtay oo kalena Muuse dhulbaantay waxna kama qabtaan waxna kama aha. iyagana waxaan leeyahay dulli alla idin bad. waxay ku hadlayeen oo sheegeen laascaanood waa nabadgelyo cidi wax kuma noqon ma laguma dhaawacmin. dulli alla idin bad baan leeyahay. soortii baa meel xun alla idinka geliyay Ilaahay meel xun idinka geliy. in badan baa dhimanaysa in badanna waa dhaawacmaysa. labadaba in la ogolaadaa loo baahan yahay oo raalli lagu ahaado ilaa iyo inta gobolka Sool uu ka noqonayo gobol xor ah. Sool Sanaag iyo Cayn intay xor ka noqonayaan oo ka xoroobayaan xunshamadooda dul fadhida. annaguna waxaanu ku jirnaa front line barta ugu horeysa waanu idinku imanaynaa. haniyad sabina dhalinyarada ragga waaweyn kuwa dhexe haweenka kulli intaad ka tira qabtaan is abaabula. ha la dagaalamo ha la iska saaro waxa kan
xunshamadooda ah ee dul fadhiistay dadka dad la haysto iyo dad la dul fadhiisto midna ma aynaan ahaan jirin haddeerna ahaan mayno shareecada islaamka marka la eegana waxa weeyaan intii la yidhi ha la abhiyo qof islaama iyo in ka badanba waynu abhin waynu ka garjoognaa shareecadana waynu kaga toosannaa jihaad baynu ku jirnaa abdiraxmaan jaamac xaashi cabdiraxmaan wadani SBS TV Garowe